الحكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن بمدين يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. الله الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أخواني إلهي baa mahadle. barnaamijkan waxaa la yidhahdaa salluu kamaa ra'aytumuni usalli ama tasxiixu salaad. waxaan ugu talagalay dadka muslimiinta ah salaadooda ilaahay subxaanahu watacaala ay la hortegayaan oo rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu leeyahay awal maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama min acmaalihim asalaat. waxa ugu horreeya qiyaama marka la tego ay ilaahay la hortegayaan waa salaada. fain salaxat faqad aflaxa waanjax wain fasadad faqad khaaba wakhasir. acmaasha ugu horreeya oo la fiirinaya waa salaada. hadday salaadda qofku ka gubato acmaashii kale oo dhan way gubatay. marka ikhwaani salaadan ilahay agti subxaana wa tacaala muhiim bay kun tahay. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wastaciinuu bisabri wasalaat wa inaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin. salaadan kaalmaysa samir iyo salaad dadka aan khaashicaanta ahayn oo mutaqiinta ahayn way ku weyn tahay. laakiin dadka khaashiciinta oo alla ka cabsada salaada kuma cusna. ilaahay subxaana wa tacaala khayru khalqi illaahi nabiyullaahi maxamed ayuu amraya وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نبي الله محمد waxaa leeyahay dadkaaga ummadaada salaada amar baa leeyahay say tahay u tukadeen ku dadaal kuna sabiro ha dhibsanin baa leeyahay waxa culayska oo kaaga imaanaya. risq kuma weydiinayno naxnu narzuquk walcaaqibatu liltaqwa. risqooda ilaahay subxaana wa taala ummadda annaga ayuuna saaran yahay adiga kuma saarna. eribta dambana dadka mutaqiinta ah oo wanaagsan ayaa iskale. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nooga warramayaa khaliilullaahi ibraahim oo ehelkiisii meel cidla ah oon cidna joogin uga tegey. markaasuu ilaahay baryaa wuxuu leeyahay rabbanaa innii askantu min durriyatii biwaadin kayri dii zarcin cinda beytika almuxaram rabbanaa liyuqimu salaat. wuxuu leeyahy ilaah ehelkaygii meeshaa cidlada ayaan uga tegi waa makee halkaasaan uga tegi. marka wuxuu leeyahy ilah adaan ku bandhigay buu leeyahay. maxaan uga tegey buu leeyahay liyaquumu salaat walam yadkur camalan kayra salaat. marka wax aan salaada ahayn oo halka ahmadii uga tegeyna ma ay u sheegin rasuulku nabigaas calayhi salaatu wasalaam. ilaahay subxaana wa tacaala ducadiisii waa aqbalay. nabiyullaahi ismaaciil oo halkaa uga tegey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala mar kale ka warramayaa wadkur fi lkitaabi ismaaciil inahu kaana saadiqa alwacdi wa kaana rasuula nabiya. ilahay wuxuu leeyahay kitaabka ku sheeg nabiyullaahi ismaaciil ku xus baa leeyahay yani arrin yar ma ahan. wuxuu ahaa saadiqa alwacdi wuxuu run sheega oo aan been aqoon buu ahaa. wuxuuna rasuul nebi ah. wuxuu kaloo ahaa wa kaana ya'muru ahlahu bisalaati wazakaat wa kaana cinda rabbihi mardiya. wuxuu amri jiray ehelkiisa dadkiisa ummaddii loo diray salaada iyo zakada wa kaana cinda rabbihi mardiya. ilaahay agtiisana wuxuu ka ahaa mid raalli laga yahay oo laga jecel yahay oo laga soo dhaweeyo. sababtu wuxuu la yimid mardaatu ridaati illaahi asbaabu mardaati ridaati illaahi. asbaabta ilaahay subxaanahu wa tacaala dhowaantiisa raalli ahaansihiisa yani fadligiisa lagu helo ayuu diyaar u ahaa. ikhwaani salaada ahmiyaddeeda waxaa ka mid ah rasuulku salawatullahi wasalaamu aleyh wuxuu inoo sheegay
bunya alislaam calaa khamsin shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxameda rasuulullah wa iqaami salaat shahaadada waa rugniga labaad oo ku xiga salaadu ikhwaani rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu inoo sheegay waxa ugu horreeyey oo waajibaadka ummadda lagu farayeelo la saaray salaada inay tahay rasuulku salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay ina awala maa iftarada allahu cala annaasi min diinin asalaat wa aakhiru maa yabqa asalaat wa awal maa yuxaasabu bihi asalaat waxay ugu horreeyey oo rasuulka la faray oo waajibaadka salaaday ahayd waxa ugu dambeeya oo dadku diintooda ay ka haysan doonaanna waa salaada dadku ay ka tegi doonaan yacni diinta waxyaabaha ku arkaanta ay ka digayaan waxa ugu dambeeya salaaday noqonaysaa marka qiyaamaha la tegana waxa ugu horreeya oo la xisaabiyo bay noqonaysaa ilaahay subxaanahu watacaala acmaasha waajibaadka ah waxaa loogu keenay waxyi laakiin salaada rasuulka waa la qaaday fowqa 7 samaawaat mubaasharatan cinda allahi ayaa lagu soo siiyey marka halkaa salaada ugu soo furan yeelay waxaa lagu soo daray malagu jibriil liamiyatiha rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiis ibnu cabaas warinayo imaam axmed musnidka uu ku soo saarayo sheekh albaan raxmatullaahi calayhi saxiixu jaamica uu ku saxiix yeelayo qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam amanii jibriil cinda albeyti maratiin jibriil ayaa wuxuu leeyahay 2 goor ayuu tuskiyey jibriil salaada wuxuu baray afcaasheeda awqaadeeda qiraa'adeeda markuu salaad dhamaystiran oo arkay rasuulku inuu la qabsaday ayuu ka tegey rasuulkuna salawaatullaahi wasalaamu calayhi dadka ayuu baray mimbar meel dadka ka koraysa sida hadda meeshan aan ku fadhiyo kale ayuu fuulay wuxuu leeyahay yaa ayuha nnaas inii sanactu hada lita'tamuu bi walitaclamuu salaatii sidaan waxaan u sameeyey inaad igu dayataan sidaan u tukanaya aad aragtaan afcaasha meel ka koreeya ayuu ku samaynayay qiraa'ada marka inaad igu dayataan oo salaadayda barataan sidaasaan u sameeyey ikhwaan rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiis imaam axmed warinaya musnadkiisa wuxuu leeyahay aakhiru kalaami rasuuli llahi sala allahu calayhi wasalam kalaamkii ugu dambeeyey ama wasiyadii ugu dambeysay asalaat ittaqu llaha bimaa malakat aymanukum war salaada iyo ilaahay uga baqa waxa aad mas-uul ka tihiin waa carruurta iyo haweenka iyo cid walba wuxuu mas-uul ka yahay ilaahay subxaanahu watacaala uga baqa ayuu leeyahayo salaada ku dadaala aakhir wasiya rasul asalaat wamaa malakat aymanukum waxaad rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi ka dambeeyey ma jirin marka ikhwaani ahamiyadda salaada ayaad garanaysaan ikhwaani waxaa kaloo jira oo rasuulku salawaatullahi wasalaamu xooga saaray waxaa ka mid a waxaa weeye uu dadka uu ku baraarujiyey arkaanta oo ay ka mid tahay afcaasha salaadda ikhwaani labay u qaybsantaa aqwaal wax la akriyo waaye waa 5 takbiirtay ka bilaabtaa faatixada tashahudka salliga nebiga iyo tasliimataka weeye 5taas waa maaragtay waxa weye wax la akriyo 9na waxaa weeye waa afcaal waaye marka afcaashana waa uu baray rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayh xadiis warinayo anas bin malik oo saxiixaynka ku sugan rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay atimu rakuuca wasujuud waladii nafsii biyadihi inii la araakum min bacdi dahri idaa maa rakactum wamaa sajadtum wuxuu yahay rukuucda iyo sujuudda iska toojiya anigu gadaal ayaan nikaarka markaad rukuucaysaan iyo markaad sujuudaysaan mucjizaadkiisa ayay ka mid ahayd hadda qof gadaal wax ka arki karaa ma jiro faraa rajulan laa yatimu rukuucuhu wayanqaru fii sujuudihi markaasuu wuxuu arkay nin aan rukuucda iyo sujuudda taam yeelin oo tukanayo arkay markaasuu rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuu yihi low maata hadaa calaa xaali xaadihi maata calaa kayri millati muxamadin sal kan hadduu dhiman lahaa oo saan uu ku dhiman lahaa diintayda waxaan ahayn ayuu ku dhiman lahaa mathalu aladii laa yatimu rukuucuhu wayanquru fii sujuudihi mathalu jaaci ya'kulu tamratan wa tamratayn laa yuqniyan canhu shay-a rasuulku wuxuu leeyahay midka aan rukuucda iyo sujuudda aan dhammaystiray wuxuu la mid yahay qof maantao dhan soomana oo xabad timira ama lamalasiiyey laa yuqniyan canhu shay-a waxba ka tari maysuu leeyahay rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh aswa'u nnaasi saraqatan alladii yasruqu min salaatih qaaluu yaa rasuula allah wakayfa yasruqu min salaatih qaala laa yatimu rukuucaha walaa sujuudaha tuuga bini-aadanka uga xun buu yahay annagu saraqatulmaal baa naqana laakiin waxaa kasii xun buu leeyahay midka salaadiisa cibaadadiisa xadaya oo maaragtay yani aan taam yeelayn rukuucdii iyo sujuuddii ikhwaani rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi xadiis abu yacla fii musnadihi bisanadin xasan oo ku soo saaray wuxuu leeyahay wuxuu arkay sidaas oo kale nin aan rukuucda iyo sujuudda aan taam yeelin wuxuu yihi rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh low maata hada calaa maa huwa calayhi lamaata calaa kayri millati muxamadin sala allahu alay slam kan hadduu dhiman lahaa sidaan uu ku dhiman lahaa diintayda waxaan ahayn
diinta nabiyullahi maxamed waxaan ahayn ayuu ku dhiman lahaa. ikhwaan rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi xadiis uu cali bn shaybaan warinayo wuxuu leeyahay saxaabigaas sallaynaa khalfa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam falamaxa maqarcayni rajulan laa yuqiimu salaatahu gadaalbu wuxuu ka arkay rasuulku in aan salaadiisa toosinayn yani sulbahu bayna rukuuc wa sujuud dhabarkiisu ayuusan toosinayn rukuuc iyo sujuuda. rasuulku salawaatullahi wasalam markuu salaaddii dhameeyey ayuu soo jeestay wuxuu yihi yaa maxshara almuslimiin laa salaata liman laa yuqiimu sulbahu bayna rukuuci wa sujuud. dad yaho maqlamayo salaad iguma jirto waxba laga aqbali maayo waxba yuusan isku daalin qof aan rukuucda iyo sujuudda toosin. ikhwaan rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi xadiis cali bn dalqan uu warinayo wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa yanduru llahu ilaa salaati cabdi laa yuqiimu fiiha sulbahu bayna rukuuci wa sujuudaha. ilaahay ma fiiriyo dan kama leh qof aan rukuucda iyo sujuudda aan iska joodin. ilahay salaadda markaan tukanayno fainahu waynu soo qaabilaya fainahu yunaajuu rabbahu qofku salaada markuu tukanayo ilahay ayuu qaabilaya. ikhwaani waxyaabaha la yaab kale waxaa weeye rasuulku uu inoola sheegay acjab alcajaa'ib intaan aniga hadda masaladan fiirfinayay masalada igu yaabka dambeydna waxay ahayd nin 60 sano tukanayay oo duqoobay oo garoonka qiyaamaha tegey isagoo shagaansan jira oo ciraystay oo aan hal salaad laga aqbalin. rasuulku salawaatullahi wasalaamu wuxuu yihi ina arajula la yusallii 60 sana wamaa tuqbalu lahu salaatu lacalahu yatimu rukuuc walaa yatimu sujuud wayatimu sujuud walaa yatimu rukuuc. ikhwaani rasuulku wuxuu inoo sheegay ninkaas 2 rugni oo salaada ka mida ayuu midba mar khaldayay. mar rukuucda ayuusan taam ka dhigayn oo xadkii loogu talagalay uusan gaarsiinayn, marna sujuudda ayuu ka dhegdheg siinayey sida uu maaragtay tukaha ama diiqu uu u cabo maaragtay biyaha iyo markuu cunayo dhegdheg uga suyo sidaasoo kale uu sujuudda ka siinayay. ikhwaani waxaa isweydiin leh qofka aan 14 rugni oo salaada mid ka mida aan saxayn sinaadana ku tukanayo. ikhwaani arrintaas aad iyo aad arrin khadiir u leh ayay noqotay. ikhwaani aniga inta badan waxaan xoogga saaraa afcaasha oo maaragtay la yidhi wax macallina looma leh. nin baa wuxuu ugu yidhi anoo masalada ka hadlaya jaamacatu lmadiina daraasaat ulciyaa 100 maaragtay dad dhiganaya 100 ka badan oo dhiganaya ayaa sheekh wuxuu yidhi maanta waxaan ku itixaamayaa sifatu salaati nabi sifatu rukuuci nabiy sala allahu alay slam wa sifatu sujuud. marka waa la galay 2 nin ama 3 nin baa ka keentay intii kala dhammaan way ku dhaceen. marka waxaa la yaa macallinka ikhwaani macallin waa loo waayay waxaan macallin lahayna waxba maaragtay ma keenayaan lama sixi karo waxaan macallin lahayn. ikhwaani afcaasha qiraa'ada lafteeda markii aan dadka u korgalnay waxyaaba cajaa'ib ah ayaa ka soo baxay. waxaa soo baxay dadku waxay noqdeen 3 qaybood. qayb cilmi bay u leeyihiin salaaddii way garanayaan cilmiga way soo akhristeen axkaamtii way soo akhriseen laakiin tadbiiq baa ka maqan sidii loogu talagalay rukuucda sujuudda afcaasha tadbiiqii ma ay samayn. qaybna waxaa weeye waxbay yaqaaneen laakiin waxbaa ka dhiman. qayb saddexaad waxaa weeye masaajidka iska soo galeen waxna ma akhrisan waxna looma akhriyin waana meesha loo badan yahay. waxyaabaha ikhwaani hadda aadka iyo aadka la yaab kale u noqday intaan arrinta ku dhex jiray oo dadka aan baarayay oo ku baraarujinaya waxaa ka mid a tashahudkoo kale inayan dadku macallim u lahayn. asxaabtu waxay leeyihiin yucallimunaa tashahud kamaa yucallimunaa suuratun min alqur'aan. wuxuu rasuulku taxiyaadka noo bari jiray sida uu suurad qur'aan noo baro. dadka markaad wareysatay yaad ka qaateen qof wuxuu leeyahay qof aan ka qaatin ma jiro aksarana saasay leeyihin. markaad imtixaantida oo tira akhrina 80% ama 90% way ku dhacayaan. ikhwaani marka arrimahaasoo dhan waxaa loo baahan yahay. waxyaabaha kaloo khada uu ka yimid waxaa ka mid ah salliga nebiga oo arkaanta ka mid ah laftiisa in dadka khalal laga geliyey oo waxaa weeye lafdi zaa'ida ayay ku daraan. waxaa weeye lafdigaa zaa'idka ay ku darayaan allahuma salli calaa sayidina sayidinigaas salaada ikhwaani kuma soo aroorin allahuma salli calaa muxamadin wacala ali muxamadin kamaa sallayta calaa ibraahim wacala ali ibraahim. salligaas ayaa rasuulka oo siiqooyin badan oo kala duwan leh ayaa rasuulka salaada ku baray ummadda. waxaan rasuulka ummadda salaada ku barin salaada ikhwaani ma ku ansaxayso. cibaado mudlaqa ma ahan salaada waa tawqiifiya. rasuulka carabkiisa laga qaato rasuulka malaku jibriil baa baray rasuulkuna ummaddiisa isagaa baray. salafkii iyo saxaabtii wax ummadda ayan barin oo ku tujin ikhwaani laguma tujin karo lama akhriyi karo. musii salaatihi ninkaas aad wadara garanaysaan markii uu irjic fasalli fa inaka lam tusalli wuu ku noqday aakhirka wuxuu yaa rasuulallahi callimnii ibar bu waladii bacataka bilxaq ma axsinu kayra haada. sidaan hadda wax ka badan ma samayn karo. marka waxaa leeyahy idaa qumta fii salaatika fakabir uma aqra' maa tayasaraka macaka min alqur'aan uma arkac xataa tadma'ina raakican uma arfac
حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك sidaasaa loo baray ikhwaani waxaa meesha ku baxaya dadka waxa kala akriya wasalli salaati alhebla waxaas wax jira maaha rasuulka ummadda kuma barin bal kutubna rasuulka kuma barin asxaabta kuma barin salafkii kuma barin marka ikhwaani in lagu ekaado wixii rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayhi salaada inoogu baray ayadaa inoogu filan ayadaa inaga soo haraysa ikhwaani in salaada lagu dadaalo oo maaragtay sidaas loogu dadaalo oo salaada la iska soco ikhwaani intaasaan dardaarminaa hadda arrinta kale aan u gudbaynaa waxaa weeye mubaasharan waxaan samaynaynaa afcaashii iyo sida saxda ah iyo sida khada ah oo dadku hadda ay ku logo'san yihiin oo dadka ay maaragtay usuu salaati wax yimin lagu hashadeen marka insha allah taasaan hadda u gudbinaa marka insha allah ayana qayb labaad ayaan ka dhigaynaa waana arki doontaan insha allah waxyaabaha saxa iyo waxyaabaha khada ah bismi illah waxaan bilaabaynaa hadda qaybtii waxaan soo marnay aqwaashahayd waxaan bilaabaynaa qaybtii afcaashahayd qofku see u istaagayaa xaggee buu fiirinayaa gamcaha muxuu samaynaya xaggee geenaya ikhwaani qofku saasuu istaagaya intaan isku jiro ayuu isku jirsanayaa wuxuu fiirinayaa mawducu sujuuda ayuu fiirinayaa salaadii ayaa hadda la gudagelayaa ikhwaani rasuulku salawatullahi wasalaamu alayh wuxuu yihi idaa qumta fii salaatika fasalli fi salaati muwaddac waxaad tukataa salaad aan salaadba kaaga dambayn qofku marka saasuu leeyahay isagoo mawducu sujuud fiirinaya oo ilaahi subxaana wa tacaala hortegaya day saasuu leeyahay allahu akbar allahu akbar samica allahu liman xamidah waa ictidaalkii iyo dumaaninadii wax walba way wada socdaan gacanta in halkan lagu soo celiyo waa ahlucilmi qayb ka mid aha qaba halkan in la geeyana culimaa qabta laakiin waxaan sunno ahayn qofka inuu saa jira caloosha halkaa saaro waxna kusoo aroortay ma jiro day ikhwan hal mar baan ku celinaynaa day saasuu leeyahay allahu akbar allahu akbar samica allahu liman xamidah rafcul yadayn saddexdaas goor waa sunno rasuulku kama tegi jirin dadka muslimiintana waxaa labaa inay sunnada rasuulka waafaqaan ikhwaani marka sida saxda waa saas akhdaada marka ayaan fiirinaynaa ku timaada ama waxyaabaha asbaabta khadaada qofku inuusan si saxa u rakuucin waxaa ka mid a ikhwaani qofkii wuu xirtay allahu akbar allahu akbar saasuu yidhi halkaasuu qabtay waa meel ka koraysa meeshii loogu tagay rugbateynka faraha rasuulku waa la kala jeni jiray rugbateynkuna qaban jiray saasuu ohan jiray soo maaragteen ikhwaani ma uu qaban halkaasuu qabtay marka qofkaas waa xiran yahay waa dalacan yahay maya wuu qabtay rugbateynkiibuu qabtay laakiin muxuu sameeyey rugbateynkii markuu qabtay oo saxna muxuu sameeyey wuu sii daayey gamcihii ayuu sii daayey gamcihii buu goday dhulkuu tegey soo maaragtaan taasna lama ogola gamcaha waa la taagayaa maya gamcihii wuu taagay laakiin akhdaada kaleo ku timaada maxay tahay ikhwaani day lugihii buu goday saasuu qofkii isla noqdo saasuu yidhi soo mina arg ikhwaani saasuu noqdo waxaa kaloo jira ikhwaani khada ku yimaada wuu saxan yahay laakiin muxuu samaynayaa hadda wuu saxan yahay mawducu sujuud ayuu fiirinayaa waana sida saxda ah in mawducu sujuud la fiiriyo gamcahana lama godayo muxuu samaynayaa saas iyo luqunta hoosta gada soo ma aragtaan intii hore wuu saxnaa laakiin muxuu sameeyey luqunta ayuu hoosta gada maya wuu saxan yahay laakiin muxuu samaynayaa qaarka u taagay saasuu leeyahay marka ikhwaani akhdaada ku timaada waxyaabahaas waaye marka inuusan qofku gamcaha godin hoos surka u celin taagin dhabarkiisa halkaa sintaa iyo halkaa isnada waa intaas ikhwaani marka hadda bal sujuudda oo ayana akhdaa badan ka jirto rasuulku wuxuu leeyahay 7 xubnood ayaa lay amray inaan ku sujuudo wejiga iyo sanka oo wada socda yadaynkan rugbateynka iyo atraaful qadamayn 7daas waxaa la si saxa ayagoo qiblada qaabilsan inay maaragtay ay aadaan marka ikhwaani sujuudi baan ayana fiirinaynaa iyo akhdaada ku timaada iyo sida saxda marka hore sida saxda aan keenaya ka bacdina akhdaadaan fiirinaynaa akhdaadu laba ay u qaybsataa mid salaada aan ku ansaxayn iyo mid makruuha oo maaragtay aan banaanayn allahu akbar allahu akbar samica allahu liman xamidah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ركوعda sujuudda waa sida saxda waa saas makruuhaadkan fiirinayna mubdalaadkana waa ku xijinayna ikhwaani makruuhaadka waxaa ka mid ah qofku
iftiraashkan inuu saan yidhaahdo qofku saa ugu gadnado inuu saas ugu dhigto waxa kale oo makruuha ka mid ah qofku inuu saan yidhaahdo oo gamcihii iyo wixii iyo hoosta gashado oo bawdyahana uu ku qabto bawdyaha caloosha iyo inuu isku dhaweeyo bawdyaha saa ugu qabto waa makruuh inuu gacmaha halkaan geliyo ayana lama ogola waa makruuh in uu halkaan dhigto dad waxaa jirta inta iska dhigay intuu gacanta dhiganaya saasuu leeyahay asagaaba isxiray qofkaa sujuud saxa lamaba imaan karo saasuu leeyahay soo ma arkin ikhwaan saasuu leeyahay waa xiran yahay taasna waxyaabaha makruuha ah ama aan sujuudi taamka ka dhigi karin ayay ka mid tahay waxyaabaha la isku hayo oo cilmiga isku diidan yihin waxaa ka mid ah qaybna leeyihin salaadu ma ansaxayso qaybna leeyihin waa ansaxaysaa waxaa weeye sanka oon dhulka la dhigin masale ikhwaani qofka saasuu yidhi soo ma aragtaan saasuu yidhi waxaa weeye sankayga hadda dhulka ma yaallo haddii aan sanka dhulka la dhiginna laa salaata rasuulku salawaatu ullahi wasalam wuxuu leeyahy laa salaata liman lam yabus anfahu ila alardi salaadu ma jirto waxba laga aqbali maayo qofka aan sanka iyo wejiga aan dhulka dhigin marka intaa in la dhigo wejiga ah oo aan sanka dhulka la dhigin culimo badan baa qabtay inay salaadaas ayn ansaxayn waxyaabaha ikhwaani aad iyo aadka hadda loo arkayo waxaa kamid ah oo dad soo dariyeen dad saas leh saasuu leeyahay gamcihii qibladii buu ka jeediyey hoos buu ujeediyey amana saanuu yidhi waan aragnay dad badan oo saasuu ohanaya soo ma aragtaan ama saanuu leeyahay ayana salaadii sujuuddii taam ma noqonayso oo qayb loogu talagalay qablada inay aado baa laga jeediyay ama xagga loo jeediyey ama xagga loo jeediyey xagga dambe ayaan fiirinaynaa iyo qaabka qofka laga rabo qofka qaabka laga raba ikhwaani waa saas irbaha soo ma aragtaan saasaa laga rabaa dad badan baa ikhwaani waxay leeyihiin ya dad badan baa saas leh xaggu u jeediyey soo ma aragtiin ama saasuu leeyahay waxyaabahaasoo dhan khada bay noqonaysaa hadduu kor u qaado ama hadduu xagga u jeediyo hadduu u jeediyo salaaddii ma ansaxayso ama kor buu u qaaday mawaadicii sujuudda laga rabay qayb ka mid a ayuu tahay ama mid kale saasuu yihi marka waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha ay salaadda ku ansaxayn bay ka mid tahay waxaa kaloo aad khatar u badan oo hadda sheekh xuseymin raxmatullahi caleyhi kitaabkiisa sifatu salaati nebiga uu ku qoray wuxuu leeyahay bal fiirsada ikhwaani u fiirsada labada sul keli ah ayaa sujuudda taagan labada sul keliya u dhigay farihiina kor bay u taagan yihin soo ma aragtaan labada sul keliya dhulka waaya wuxuu leeyahay ana actaqid laa tasixu haadihi salaad salaadaas labada sul keliya oo la dhigo inayan salaadu ansaxayn baan aaminsanahay waa nin shuqo caalima marka maxaa laga rabaa waa la jeedinayaa faraha iyo suulka waa la jeedinaya qiblaha loo jeedinaya suulka waa la jebinaya faraha waa la jebinaya qibladaa loo jeedinaya ikhwaani marka insha allah in laga taxadaro oo salaadan wixii afcaalana saasaan u muujino dadku ay insha allah u bartaan ya saluu kamaa raytum usalli wixii qiraa'adana in dadku ay iska saxaan oo macallin ay u tagaan qiraa'ada macallin ay ka qaataan afcaashana hadda intaan aan samaynay aad bay u fududahay qofku hadduu tatbiiq sameeyo way u fududahay marka insha allah waxaan kusoo gabagabaynaa barnaamijkan in ummadda muslimiinta ay ka faa'idaystaan oo salaadan ayan dayicin salaadan inayan dayicin oo sidii rasuulku u tukadaan waxaan idhaahdaa masale yar ayaan ku dara waxaan ku uri intaan buunku kugu dhicin qiyaamaha la soo bixin lamba dhigin acmaalaha warhooy bara salaadaada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان رحمن يا رحمن بمجين يا رحمن أصبك ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتي يا رحمن